السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلهي ما هدي دان اسكو سو لابنay markaan iyo mar kale fara badan asxaabay inta aan maanta barnaamijkeenu ka guda gelin waxaan u tahay codsi channelkaygu aad ka channel yaro ma aragtay aan dad badan ku xirnayn bal subscribe-ka igu roonaada dhiirigelin bay ii noqonaysaa aniga inaan waxyaalo fara badan idinla wadaago asxaabay haddaan idin sheego maanta waxaa jira waxyaalo fara badan oo igu soo laablaabtay oo bulshadeena Soomaali ahaan aad ma aragtay oo xanuunkeeda leh waxaa ka mid ah qof baa maxay ay tala liidaya waxaa leeyahay hay heblaayo haye maxaa dhacay heblaayo waa way ciishay ninka waa ka tegay hay heblaayo markay ilmo dhashay madoobaatay oo ciishay waa iska shaqeeda dhan waa laga tegay haye hebel caloosha halkaa timid naagti way nacday sidoo ma aragtay maalin kasta oo maslaxeynaya war iga tagay tiri waxba ma tiraysid waxaasoo dhan waxaa la yiraahdaa self confidence kalsoonida qalbigaaga ka timaada waxaa la rabaa number 1 qofku in uu aaminsanaado qofka qurux badan inaysan jirin qofka aqal badan inaysan jirin qofka ma aragtay attractive inaysan jirin soo jiida leeyahay horta halkaan baa horta marka ugu horeysa horta lagu qurxoonaada quruxda lagu sheegayo waa qalbiga dusha iyo ma aragtay dhar la xirta iyo qurux ma noqoto haddaa halkaas ka qurxoonayn waxaa tahay male koo horta qalbigaaga nadiif ahaado labo isku kalsoonaaw kalsoonida inaad isku qabto waa muhiimada koowaad waayo oo dadka khayrkaa u raaci kartid haddii aadan isku kalsoonayn cadowgoo dhan uu kaa faa'iidaysanaya waxaa leeyahay heblaayo ma aragtay waxay gashanayd hebel ma aragtay ma labisto isaga dhanba duruufa ka muuqata xitaa haddii duruufta ku hayso oo dan yar tahay ood xoole haysanin labada shay ood haysato waa inta dhaqataa feeraysanaysaa xiranaysaa adigoo taagan laba joogo dhar haddaa leedahay oy nadiif kuu yihiin oy kuu feeraysan yihiin oo kuu taagan yihiin qof kaama horeyso hadda waa laba shay gabaree adigana sidoo kale haddaa laba joogo dhar haysatid oy nadiif kuu yihiin oo adigu korkaaga nadiif yahay cidna kaama qurux badna yaan la idin buligarayna waxaas gaaladu waxay yidhahdaan buligaraysa dad qof ka direento qof ku dhahaya dad aragto inta kaa hor yimaada maanta kara heblaayo waan madoobaata baryahaane maxaa dhacay maxaase ka ah qofkaasoo ku buligaraynayaa isxaan kuu sameynaya yacni inuu niyadda kaa jabiyo jecelyahay heblaayo baryahan waa caatooday waxaas lama dhegaysto qofka hadduu ku yiraahdo saas qof xataa istaqaanaan oo ma aragta qofaas garanaysaan hadduu yahay uu ku yiraahdo waa caatooday anaa ugu talagalay halkaasaa ku burburisa cadowgaas waa faal xumaatay run anaa ka shaqeeyey waxaa aaminsantahay qalbigaaga inaan qof ninkaa qurux badnayn quruxdii oo qofa inaad tahay baaba adiga dhanba aad ka dharagsan tahay marka qofku ataagarayn kara iyo qofku dhihi kara maxaa dhacay iyo see wax kaa yihiin iyo ma jirto marka iska ilaaliya dadka idin yiraahdo waa ciisho baryahaane waa faal xumaatay qofkaas immediate jawaab sii waa caatooday anaa ugu talagalay waa ciishay anaa isnaaxiyey xagee lagaa soo galayaa marka meel lagaa soo gala male marka self confidencega waa muhiim rag iyo dumarba waxaa arkaysaa gabar maxay ito oo ma aragtay si qalbiyan ahaan iska ilmo korsanaysa oo masaakiin ah oo lagu diganayo ninkii baa ka tegay waa isku buuqday ninkaa tegay lagama daba ordo hore u socaal dhahaa adiga sidaad mid kugu rabaa helaysaa nin waxaa arkaysa naagtiyaa ka tagtay ha u joojinin mid ku rartaa imaanaysa marka muhiimaddu waa markasta inaad adiga isku kalsoon tahay waa inaad naftaada ka dhaadhicisaa qofkaa qurux badan iyo qofkaa aqli badan iyo qofkaa taajirsan inaysan jirin asxaabay hadalkii aan kusii dheeraanine haddii aad haysaan sheekooyin iyo waxaad qasooyin aad rabtaan inaad ila wadaagtaan meesha masajka iigu soo qora waa idinka sii soconayaa barnaamijka dhiirigelin oo ahaa maanta maalinta idiin wacnaato haddaad channelka cusub tahay subscribe like share haddaan nala joogtana gacmo furan kusoo dhawow maalinta idiin wacnaato ciao